رمضان رمضان كريم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marar badan waa rajeynaya inaan sidaan oo kale idiin soo horfariisto, wada sheekeysano, barnaamijyo waxtar leh, wax ku ool idiin soo gudbiyo. waxaa iga barateen anaashiid anoo qaadaya kaliya inaan idiin soo horfariisto oo idiin soo hor istaago. laakiin bishan ramadaan waxay inoo noqon doontaa bil gaar ah, bil aan maxaa la dhahayaa waxyaabo badan kala faa'iidno, mowduucyo xasaasi ah oo anagana anfacayo adduun iyo aakhiradeena insha Allah ay kala faa'iideysan doono inaan idiin soo gudbiyo. halka naga daawanaysaan waa Najma Ali Xuseen dhammaan platformska ku leeyahay social media. maanta waxaa rabaa inaan idiin soo gudbiyo mowduuc ka hadlaya sidee ramadaanka uga faa'iideysan karnaa. walaalayaal, ramadaanka ma ahan bil caadi ah, waa bil isbedel, waa bil toobad, waa bil guul. laakiin su'aasha waxay tahay sidee ayaa ramadaanka uga wada faa'iideysan karnaa dhammaanteena. qodobkeena koowaad, fahamka ujeedada ramadaanka. الله سبحانه وتعالى وحو قرآنك سكويري يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كوبا الله رمييه وحال إذنكو واجبية صون سيدا لوغو واجبية كو إذنكو هريه سي أو نقطان كوبا الله كبقى. رمضان كهكدهين بالقاجة يهرات كلية، لكن وحاكدكتا بالعبادو بالدنبداف بالتوبت كان. مركا فائدة كوبات waxaa weeye ha ka dhigin bil gaajo iyo haraad, waxaa ka dhigtaa bil qalbiyada la nadiifiyo, bil toobad, bil cibaado. qodobkeena labaad waa qur'aanka iyo ramadaanka. wato Allah subxaanahu wa tacaala yiri shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan. bisha ramadaan waa bishii qur'aanka la soo dejiyey. qur'aanka iyo ramadaanka waa laba aan kala go-eynin, aanan kala haraynin. marka waxaa samaysataa qorshe maalinle ah sida jus inka badan iyo inta awoodidba. qodobkeena saddexaad waa salaada taraawiixda iyo qiyaamka. sidoo nabigeena sallallahu alayhi wasallam yiri xadiis ay wariyeen Bukhari iyo Muslim, qofkii ku tukada salaada taraawiixda ama qiyaamka iimaan iyo ajr rajeen, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dambigiisa hore wuu dhaafi doonaa. marka ha ka tagin salaada taraawiixda iyo qiyaamkaba haddii aadan awoodin inaad masaajidka aadid, gurigaaga ku tuko insha Allah. qodobkeena afraad waa istighfaarta iyo toobada. sidoo nabigeena sallallahu alayhi wasallam yiri xadiis uu wariyay Tirmidhi, markii la gaaro ramadaanka albaabada naarta waa la xiraa, kuwa jannadana waa la furaa, shayaadiintana waa la silsiladeeyaa. haddaba waa fursadda ugu weyn ee toobadkeenka. badso tasbiixda, taxmiida, tahliilka iyo istighfaarta. qodobkeena shanaad waa inaad sadaqa baxsataa. rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa kan ugu deeqsisan bisha ramadaan. sida uu wariyay Cabdullaahi ibn Cabbaas, waa inaa sameysaa oo aqoodisaa masaakiinta inta awoodid, inaa afurisaa qoysaska danyarta ah. sadaqadu waxay ii damisaa dambiyada ama baabi'isaa. inta awoodid waa sadaqaysan kartaa, ilaahu may ahaato 1 shilin ama $1. waxa awoodid waa sadaqaysan kartaa maalinka ramadaanka, waa ajar adiga gaar ku ah oo ku yaalo. qodobkeena lixaad oo aan uga faa'iideysan karno ramadaanka waxaa waaye inaad ka tagtid dambiyada. rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam sidoo uu yiri xadiis uu wariyay Bukhari, qofkii aan ka tagin hadalka xun, ficilka xun, uma baahna Allah subxaanahu wa ta'aala inuu ka tago cuntadiisa iyo cabitaankiisa. marka waa inaad ka fogaataa xanta, muranka, wax walba oo dambi kaa soo gaari karo oo ajirkaaga nusqaamin karo, ramadaankaagana wax u dhimi karo. qodobkeena toddobaad oo ah kan ugu dambeeya waa inaad samaysataa practical planning oo maalin kasta ah, sida inaad maalin walba quraan akhrisid, 100 istighfaar ka badan samaysid, sadaqa joogto inaad bixisid, salaada oo waqtiyadeeda ku tukatid, iyo ducada saacada afurka, waqtiga afurka soo galayso inaad diyaarsatid ducooyin ku gaar ah si Allah subxaanahu wa ta'aala uu aqbalo ducooyinkaaga. guntii iyo gabagabadii, walaalayaal, ramadaan waa 30 maalmood, waxaana laga yaabaa in midkood ay noqoto habeenka Laylatul Qadriga. haddii aad si dhab ah uga faa'iideysato ramadaanka, noloshaada dhan way isbedeli kartaa insha Allah. ha ka dhiganin ramadaankaaga cunto iyo hurdo oo kaliya, balse waxaa ka dhigtaa bishii 11 bilood ee soo socdo khayrkeeda lagu waafajin lahaa. badso ducooyinkaaga, riyooyinkaaga waa xaqiijin kartaa bishan ramadaanka si Allah subxaanahu wa ta'aala wax walba oo jeceshahay ku waafajiyo. ilaahay acmaasha iyo soonka iyo salaada hanaga wada aqbalo dhamaanteena. waxaan rajeynayaa muuqaalkeen inuu noqdo muuqaal waxtar leh, adigana isku goobin oo walaalka kala gaarsiin insha Allah. videogeena hadduu soo gaarana like iyo subscribe iyo share meel kasto anaga daawanaysid.
asalaamu calaykum.